Iskuulka Turkism waxa uu ka mid yahay iskuulada ugu aqoonta fiican ee ku yaala dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara. Maamulaha iskuulka Turkism oo laga furay magaalada Ankara ayaa waxa uu ka warbixiyay adeegyada waxbarasho ee uu bixiyo iskuulku, isagoo dhanka kale fariin u diray waalidiinta caruurtooda keenaya dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara. Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan oo isagu ka warbixinaya. Bismillahirrahmanirrahiim. waxaan anigoo ah Cabdiraxmaan Sheekh Xaaji Xasan, maamulaha iskuulka macadka Turkism للعلوم الشرعية واللغات ee ku yaala magaalada Ankara, xaafada Kejoran, degmada Yeela Maxalasi. waxaan halkan bulshada Soomaaliyeed kula socodsiinayaa inaan u hayno waxbarasho tayo leh, barashada Quraanka Kariimka ee xifdintiisa, culumta islaamka sida tarbiya islaamiya iyo caqiidadii wanaagsaneyd ee salaf saalix in ilmahooda loo bari doono. sidoo kale waxay ku baran doonaan macadkan afarta luqadood: luqada Turkiga, luqada Carabiga, Ingiriisiga iyo af Soomaaliga. afarta luqadood tarbiya islaamiga oo dhameystiran, xifdiga Quraanka Kariimka ah iyo tafsiirkiisa ayay ku baran doonaan insha Allah muddo yar oo kooban. waa furan yahay dugsigu, waana la furay, waxaa la furay bishan hadda soconaysa insha Allah taala. waxaan ugu bashaareynaa bulshada reer Ankara ama rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan waxbarasho idin qancisana aad heli doontaan ayaa idin rajaynaya. sidoo kale waxaan ku bashaareynaa macadku wuxuu bixiyaa dadka waaweyn ee u baahan luqada Turkiga inay bartaan. waxaa loo hayaa macallimiin Turkiyiin ah oo u diyaarsan inay luqada Turkiga baraan, oo koorsooyinka 5 koorso ay siiyaan 6 bilood ay ku baraan luqada Turkiga. insha Allah taala bishaaro ayaa idin leenahay. waxaan kaloo idinku bishaareynaa caruurta yararka ah oo xadaanada la yiraahdo waan qabanaa. muddo yar oo koobanna ugu badnaan 6 biloodna ilmaha waa lagu farbarayaa. waxaan ballan qaadaynaa inay 6 bilood gudahood ilmaha waxna ku qoro waxna ku akhriyo, oo qoraalka iyo akhriska uu ku barto ayaa idin ballan qaadaynaa. mar labaad waxaan idin leeyahay reer Ankara, bulshada Soomaaliyeed ku nool magaalada Ankara, ku soo dhawaada macadka Turkism للعلوم الشرعية واللغات ee magaalada Ankara ku yaala. ahlan wa sahlan, waxbarasho tayo leh iyo macallimiin xirfad leh iyo dad wanaagsan baa idin ka soo horeeya insha Allah. iskuulku macad wuxuu leeyahay gaari buu leeyahay service oo arday walba gurigiisa geynaya kana soo qaadaya insha Allah taala. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. wixii macluumaad inta dheer ee macadka aad uga baahan tihiin waxaad nagala soo xiriirsaan telefoonka shaashada ku qoran, adreeska macadka oo idin shaashada halka idin ku soo qori doono oo Yeela ku yaala. waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.